munaasabad ballaaran taa oo isugu jirtay sagootin loo sameynayay macalimed Sacdiyo iyo mid lagu soo nooleynayay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ayaa waxa lagu qabtay hoolka weyn ee jaamacadda Al-Hilaal. munaasabadan way soo qaban qaabiyeen ardayda jaamacadda Al-Hilaal ayaa waxa ka soo qayb galay macallimiin arday madaxda sarsare ee jaamacadda Al-Hilaal iyo marti sharaf kale oo munaasabada lagu casuumay. intii ay socotay munaasabada waxa lagu soo bandhigay agabyada kala gedisan ee Soomaalida u leedahay caadada iyo dhaqanka iyadoona agabka iyo cuntada la soo bandhigay ay sharaxaad ka bixiyeen ardayda jaamacadda Al-Hilaal ee soo qaban qaabiyay munaasabada. ugu horeyn qaar kamid ah ardayda jaamacadda Al-Hilaal ayaa madasha munaasabada ku soo bandhigay suugaan ka hadlaysa hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. sida lagugu dheefsaday ama lagaga dheehdan aniguna Al-Hilaaley aqoontaada wacan iyo daruustaadan kala dhigan marna aanu dheehdaa marna dhageysta. sidoo kale munaasabada waxaa ka hadlay macalimed Sacdiyo waxaana ay ardayda soo qaban qaabisay munaasabada ay kaga mahad celisay qaabka ay u soo bandhigeen munaasabada ku aadan soo nooleynta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxaana ay sheegtay in hidaha iyo dhaqanka ay tahay mid u gaar ah dal kasta oo adduunka ku yaal. dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaan ay ku dheehan tahay nabadgelyo iyo naxariis salaan ummadda islaamka oo dhan ay ka wada dhaxeyso taasoo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi waxaan u mahad celinayaa dhammaan ardayda afarta faculty maanta barnaamijkan aad ka quruxda badan leh soo bandhigtay. marka hore waxaan leeyahay aad ayaa u mahadsantihiin. waxaan rabaa si gaar inaan hortiin uga mahad celiyo xafiiska arrimaha ardayda oo mar walba u taagan baahida ardayda ka jirto inuu haqabtiro mar walbana u taagan aqoonta ardayda inuu kor yeelo. aad ay u mahadsan yihiin xafiiska arrimaha ardayda shaqo culus ayaa u heysiin ardayda oo aad u qiimo badan. marka waa idinku badaadinaynaa haddaan nahay macallimiinta waan idinla shaqeyn doonaa hadduu alla idmo waana mahadsantihiin. waxaan kaloo rabaa si gaar ah madaxda maanta joogta hortooda dhiimanka iyo xafiiska arrimaha ardayda hortooda si gaarna uga mahad celiyo guddigii xalfadan ama barnaamijkan aadka u quruxda badan soo qaban qaabiyey oo iskugu jiro dhammaan afarta faculty ee barnaamijkan maanta ku mideysan. ayagana waxaan leeyahay aad ayaan idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan leh ilaa iyo xalay ilaa iyo shalay barnaamijka aadka u quruxda badan leh aa usoo bandhigteen. aad ayaan ugu faraxsanahay sida quruxda badan leh oo aadka u qiimaha badan aad usoo bandhigateen maadada aad qaadateen. anigana waxay ii tahay sharaf idinkana waxay idin tahay ciise iyo sharaf ayay idinka. waa mahadsantihiin. caalamka ama dunida waxay ku kala hormaraan waxay tahay aqoon. aqoontu waa meesha kaliya ee dal walba dalka kale uu uga hormaro. aqoontana waxay ku imaadaa un in dadaal iyo barasho un loo istaago. idinkana maanta dalkana wuxuu ka hormar lahaa wadadiisa ayaa heesin oo ah inaa maanta waxbarasho soo aadeen. waan idinkaga hambalyeenayaa. waxaan rajaynayaa waxbarashada aad ku jirtiin inaa aad u sii dadaashiin si aa aqoontiina aad horumar uga gaarteen. waxyaalaha aadka aan kula dardaarmayo waxay tahay ardaydeeda in akhriska la badiyo. qofka kulama shakhsi kasto oo ka akhris badan yahay wuu ka horumar badan yahay. marka waxaan rabaa casharada lagu dhiga meehe in wax badan aad maxaa la yiraahdaa ii sheeg aad buugaagta badankooda akhrisiin qiraa'o badan aad sameeysiin si wad horumar u gaartiin idinka iyo dalkiinaba iyo dadkiinaba horumar u gaarsiisiin hadduu alla idmo.